waxaa maanta magaalada Ceelafweyn soo gaaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID oo kormeeraya habsami socodka diiwaangelinta uga socoto gobolka Sanaag. wafdidan uu hogaaminayay gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Ceelafweyn waxaana la soo galbiyay xafiiska uu xisbigu ku leeyahay degmada Ceelafweyn waxaana wafdidaasi ku helinayay musharaxiin ka tirsan xisbiga mucaaradka UCID. markii la soo gaaray xafiiska uu xisbigu ku leeyahay degmada Ceelafweyn ayaa waxa halkaasi kala hadlay maanba taageerayaasha xisbiga mucaaradka UCID Faysal Cali Waraabe oo ku booriyay inay nabadda ilaashadaan isla markaana ay isdiiwaangeliyaan. تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مهد سبحانه وتعالى إلهي مهد له إلهي قلنا بدينا سيا مهد له وأنا مهدسنتين وحن وسعني ديوان تان كورميريني هذا كامبين كمتشرو لكن سو دوين تان ونتكا أقبلنا ومهدسنتين وحن أدبانو تشعلاينا خير عير وفين الله وحوية هير عير وفينو إلهي مهدوي وتحضر نبضي قالتين الحمد لله وي مقالدين وكاسو قبيلي بابو يا كاتيه بربراء وضنا البيالتين وسوق قليا وحنا الدمر كي عرورتها نبضك واتكيستا نبض وحديقة نبض عرورتها سين مكان بدن بلا اسكول هيد واسكول حناير تسوى دلاتين دتك اسك خيغا magaciina hore soo ceshada habar lamaan dad wanaagsan doorta insha Allah taala anaga sanadka waa lagu xukumo waxa la yiri qof kastaba waa inuu xusbi kastaba gobolka inaan ka sharaxa baa la yiri waa sharciyan galay habluhu reero ma sharaxna ardaa ma sharaxna sanaagu dhanba u sharaxay inta la sharaxo inta dumarka waa in helaan cod helaan dumarku waa inay talada wax ka gooyaan oo ay baahidooda sheegaan oo markay baarlamaanka galaan ay shuruuc soo saaraan dumarku wax u taraysa inay soo saaraan baa weeyay taas waxaan kormeerkan taginaa idin hawl baa ku jirtaane waa idin kaata waa inoo ballan horumarka ay dalkeena ka shaqeynaa horumarka ayaan ka shaqeynaa horumar baa wax lagu gaari karaa walaalayaal dawaydkaas wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. intaa kadib waxa ay wafdidii soo kormeertay labada goobood ee degmada Ceelafweyn ay ka socoto diiwaangelintu waxaana warbixin ka bixiyay xoghayaha xisbiga mucaaradka waxaanu ahayn wafdi ilaa iyo shalayto gobolka Sanaag uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Xuseen oo ilaa iyo shalay gobolka Sanaag joogay goboladii kale ee togdheerna wax ka soo furay diiwaangelinta bilowgeedii xalayna garadag joogay iyo shalayto saakana Ceelafweyn iyo tuulooyinka u dhaxeeya oo dhan soo maray waxay ahayd ujeedada safarka iyagu kormeer diiwaangelintu sida ay u socoto intaas ay ku ekayd gudoomiyuhuna safarkiisa maadaama lixda gobol ee Soomaaliland gudoomiye aad looga jecel yahay inuu ogaado oo ku dhiirigeliyo dadka isdiiwaangelinta ayay ahayd safarka iyagu gobolkuna aad iyo aad buu nabdoonaa goobo fara badan oo tan ka mid tahay oo goobihii degmada garadag iyo degmada Ceelafweyn baanu soo maray diiwaangelintuna aad iyo aad bay u socotay waan idinku hambalyeynaa reer Sanaag sida nabadgelyada ah sida wanaagsan ee shaqo wanaaga ah u wadeen hawsha dhalinyarada ka socota commissionka nooc kasta leh ee hawsha ku jira ee habeen iyo maalin u taaganna waan u hambalyeynaa ujeedadaan u nimi sidaas ay ahayd waa Maxamed Abaadir Bulsha TV Ceelafweyn.